waxaa soo qabsoomay shirar isdaba joog ahay oo ka soo dhacay Dhuusamareeb caasimadda Galmudug iyo kii ugu dambeeyay ku qabsoomay caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Muqdisho. shirarkaas oo ujeedada ahayd loo gogol xaarayay sidii ay ku dhici lahayd doorasho heshiis lagu yahay oo waqtigeeda ku qabsoonto. waxaana socda marxaladihii isku xig ahay oo lagu soo heshiiyey waa bilowmeen waa socdaan guddiyada waa la magacaabay dhamaystirkii iyo sidii lagu gaari lahayd targetka heshiiska lagu ahay oo ahay doorasho dhacdo waqtiga loogu talagalay ayaa lagu socdaa. muhiimadana waxay tahay inay ku dhacdo sidii loogu talagalay iyo waqtigii iyo wixii lagu heshiiyey shacbiga Soomaaliyeedna ay arkaan nidaamka iyo dimuqraadiyadda iyo heshiiska waxa lagu yahay wada tashiga inuu yahay wax mid ku socda sidiisii. taas ayaan dadka Soomaaliyeed ku wargelinaynaa. marka labaad qof kasta oo Soomaali ah waxa uu xil ka saaran yahay inuu door ku yeesho intaas ugu aadan waxa nabadgelyada iyo wanaagga loo socdo iyo nabadgelyada inuu ka qayb qaato inuu mar walba mandhaha uu ku haayo doorashadan inay tahay mid sida dariiqeeda xaqaad ku socoto inay muuqato in laga qarinayn dadka ay ogaadaan guddiyada inay yihiin guddiyada sidii loo heshiiyey loo soo magacaabay waqtiga loogu talagalay doorasho inay dhacayso. qof walba oo Soomaali ah oo tartamayana waa u furan tahay oo waa waxyaabaha lagu heshiiyey ka mid tahay oo qaanuunka sida uu qorayo waaye. muhiimka waxa uu ahna waa in laga ilaaliyo wax carqalad dhaliyo oo caqabad ku noqdo doorashada inay dhacdo waqtigeedii wax kasta oo hakina oo waqtigeedii ka leexina ama dariiqii lagu heshiiyey ka leexinaan in aad looga fogaado oo la iska ilaaliyo. dawladduna waxay diyaar u tahay inay waqtigeedii arrintaas ku qabsanto guddiyada si loo magacaabay sida loogu talagalay loo heshiiyey waqtiyadana waqti walba wixii loogu talagalay inay qabsoomaan maarta qorshaha uu yahay. taas waa meeshaas midda labaad. waxaan rabaa inaan ku darsado hadalkayga dagaalada sokeeyo oo ahliga oo ka socda meesha la yiraahdo Galmudug gaar ahaan Hildooyaale dadka wada degan waa dad walaal ah waa dad muddo wada degan waa dad meesha ku wada abuuran oo Ilaahay isu keenay dhulka ma kala go'ayo. marka maadaama uu dhulka kala go'ayna waxa haboon dadka in nabad inay ku wada noolaadaan ka fakaraan. waxaan ugu baaqaynaa in dagaalka ay joojiyaan si alla ka cabsi leh ehelnimo leh Soomaalinimo leh inay u xisaabtamaan oo ay dagaalka joojiyaan. dagaal wiil ku dhintay wiil kuma dhasho. waxaan leenahay anigu ku hadlay magaca wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta doorka uga aadan oo dib u heshiisiineed ayaan rabnaa inaan ka qayb qaadano culimada diinka iyo odayaasha waxgaradka ah iyo haweenka iyo bulshooyinka Soomaaliyeed oo deegaankaas degan. waxaan leenahay dadkaas inay isu taagaan sida nabad loogu wada noolaa lahayd kaalinkooda ka qaataan. dhalinyarada qoryaha sidato oo ayaga isdilayo oo ayaga oo adduunka maanta hor leh oo dalka u baahan yahay si sahlan ku dhimanayo ama ku dhaawacmayo ku naafoobayane waxaan leenahay dagaalkaas wiil ku dhashay wiil kuma dhinto in la joojiyo dagaalka wada hadal iyo wada xaajoon dagaalkaas uu ku dhamaado. sidoo kale dagaalka ka socda meesha la yiraahdo Warshiiq dadka ehelka ah ayagana ay ku dagaalameen waxaan leenahay dagaalkaas sidoo kale isna istaago doorka aan ku leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan leh u dhaqaaqtaankeeda aan ku jirnaa waa galeynaa insha Allah haddii Ilaahay idmo annagoo kaashanayna waxgaradka dhaqanka iyo duubabka Soomaaliyeed oo deegaanadaas ka soo jeeda iyo kuwa kale oo laga maartay dariska oo laga maarmaanka ah oo nawaaxiga iyo magaalooyinka kale Soomaaliya joogaba culimada diinka ururada haweenka ururada bulshada rayidka annagoo kaashanayna waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno sidii arrinkaas uu noqon lahayd mid aan dib u soo noqonin oo meeshii wanaag iyo wada noolaansho fiican ka dhalato. haddii ayaga aysan gacan nagu siinina arrintaas ayada waa wax culayskeeda la waaye. marka waxaan ka codsaynaa ayagana inay wanaaggaas aan rabnaa ka shaqeynana gacan nagu siiyaan dagaalkan ay joojiyaan ugu baaqaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.